ama hal ku dhagu hooyaday iyo salaada qisaduna waa sida soo socota waxa jiri jiray nin magaciisa la yiraahdo Jurayj wuxuu kamid ahaa dadkii hore ee reer banu Israa'iil ayaa lagu sheegay wuxuu ahaa nin caabida oo Ilaahay in badan caabuda subhanahu wa ta'ala wuxuu samaystay meel gooni oo sawmaca la yiraahdo oo uu Ilaahay ku caabudo keligii subhanahu wa ta'ala ayuu samaystay maalin maalmaha kamida waxa u timid hooyadii waxay ku soo hagaagtay asagoo salaadii tukanaya salaaduna waa salaad sunna way la hadasho waxay tiri yaa Jurayj qalbiga wuxuu iska yiri ma salaadaad sii wadataa mise hooyada baad maqashaa wuxuu qaatay go'aan inuu salaada sii wato way ka dhaqaajisay haddana maalin dambe ku soo noqotay sidii asagoo u tukanaya oo kale ayay ku soo hagaagtay waxay tiri yaa Jurayj wuxuu yiri ma salaada sii wadataa mise hooyada baad maqashaa wuxuu go'aansaday inuu salaada sii wato way ka dhaqaajisay mar labaad mar saddexaad bay ku soo noqotay asagoo salaad tukanaya sunna way u dhawaaqdo waxay tiri yaa Jurayj wuxuu isiri ma hooyada baad maqashaa mise salaada sii wadataa wuxuu go'aansaday inuu salaada sii wato saddex arrimood saddex waqti oo kala duwan markay arintaasi hooyadii qabsatay saddexda jeerna ay iska tagayso saddexdubana asna uu salaada sii wato ayay habaartay fala ilaha illa allah ila eega ila fiiriya habaarka hooyadu sidoo Ilaahay agtiisa looga aqbalo sida ducadaba Ilaahay agtiisa looga aqbalo maxayse ku habaartay qadarkay ku habaartay hooyo hadba qadarkay kugu habaarto kugu dhacaya way ku jecesha waxay tiri Ilaahayow wiilkayga naftaha ka qaadin ilaad gabdhaha xun wajigooda tusto arrin adag oo fitna ayay ku habaartay reer banu Israa'iil waxay ku sheekaysan jireen Jurayj iyo cibaadadiisa waxay dhihi jireen ninka waa nin cibaado badan qof kasta oo fiican qof allergy ku qaba qof kasta oo wanaagsan qof xasaasiyad ku qaba gabadh waxaa jirtay magaalada laga yaqaanay magaalada markaa la joogay gabadh fisqigeeda iyo xumaanteeda la yaqaanay ayaa joogtay gabadhiba waxaa mar badan ay maqashay Jurayj waxay tiri aniga hal ii daayo aniga wadada ka dhuminaya aniga wadada ka leexinaya wanaaga aad sheegaysaan ee aad ku tilmaamaysaan aniga hal igu faatixeeyo qofkiisa Ilaahay ku xiran Ilaahay baa ilaalinaya Ilaahay baa u gargaaraya Ilaahay baa sharta ka xijaabaya qofka dhowrsoon Ilaahay baa dhowraya Ilaahay baa xifdinaya Ilaahay baa sharta garan marinaya wixii loo soo maleego oo loo soo gunto Ilaahay baa kala furfuraya ila dhageysa qisadan say u dhici doonto ciwaankeeda xusuusiyo hooyo iyo salaada qisadu waa qisatu Jurayj
ayadoo habaartay ilaahayow wiilkayga ha dilin ilaa aad gabdhaha xunxun wejigooda ka tusto si ducada loo aqbalay fiiri gabadhii xasaasiyada ku qabtay qofka wanaagsan ayaa tiri aniga ha laygu faatixeeyey wayse soo qurxisay gabar wax maagan kadib asagoo tukanayay soo hor istaagtay qofka markuu ilaahay hor taagan yahay oo qalbigiisa allah ku xidhan yahay maba arkaya wax hortiisa yaal maba arkaya wax hortiisa taagan maaha salaadeennu iyo salaaddii dadkii hore way kala duwanaayeen ilaahay baa ilaalinaya subxaanah sidii nebi yuusufba ilaahay gabadhii oga ilaaliyay imra'atu alcaziiz wa qaalat hayta lak qaala macaada allah acuudu billaah innahu rabbii axsana mathwaay sida oo kale mar alla markay xagga ay ka istaagtay oy xagga ka istaagtay oy aragtay inuusan damba ka lahayn ayay dhaqaajisay nin reer baadiye ah oo adhi la joogo adhi raaca ayay u tagtay oo miyuu u daahayaa xumaantii buu ku sameeyey uur bay halkaas yaa ku uureeyey yaa kale kan wadaadka isku sheegaya ayaa ii uureeyey acuudu billaah kan wadaadka isku sheegayaa ii uureeyey waa la sugay mar alla markay dhashay wiil bay dhashay magaaladii oo dhan baa soo yaacday wadaadkii yaa ilmahan kaa dhalay ninkaa meesha ku jiree wadaadkaa iga dhalay dadkii oo dhan baa soo yaacay dhulkaa la dhigay asagii dhiig baa laga keenay meeshuu ku cibaadaysanhayo oo dhanna waa la baabi'iyo waa la burburiyey iga hadliya buu yidhi hal mar idhegaysta iweydiiya bal horta aan idin weydiiya maxaad igu dilaysaan bal iga hadliya waxaa la yidhi waxaanu kugu dilaynaa wiilkan ayaa dhashay waxaanu kugu dilaynaa wiilkan ayaa dhashay markaasuu yidhi bal ii keena wiilka aad sheegaysaan magaaladoo dhanna ha isu timaado kadib ayuu intuu gacantiisan qaaday oo candhuuf yar mariyey oo ciiddana saa u taabsiiyey ayuu halkaa xudunta ama xundhurta ah ayuu ka saaray wiilkii wuxuu yidhi yaa ghulaaman abuuk war wiil yahow yaa ku dhalay waa ilmo yaroo habeen hore dhashay ama asbuuci lasoo dhaafay dhashay caado ooma lahayn ama lama aqoonin ilmaha inuu hadli karo wuxuu yidhi arraaci ninkii adhiga la joogay ayaa i dhalay qisadaa maxaad ka fahantay uxibuka fillaah waa qiso cajiib badan hooyada iyo salaada sunnaha ah iyo hooyadaaba fadli badan dhagayso si fiican u maqal haddaad weyn tahay haddaad caruur leedahay iyo haddii aad yar tahay hooyadaa waa hooyadaa aabbaha waa aabbaha uxibukum fillaah intaanu kaga kulmayno xalaqada tan xigta oo 11 waxaan idinkaga tegayaa uxibukum fillaah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu